salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. wacano wanaagsan daawadayaal, jimco wanaagsan, kusoo dhowaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah. waxaad kala socotaan Haga Media. qodobada ugu waaweyn ee warkeen aan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid ah amniga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo si weyn loo adkeeyay xilli laga cabsi qabo in qaraxyo lagu weeraro xafiiska ra'iisul wasaaraha. Beyle oo afka furtay kuna dhawaaqay xaalad xun oo dhaqaale oo Soomaaliya ay wajihi doonto haddii doorashada si degdeg ah loo soo gabagabeyn waayo. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo qaaday gulufkii ugu xoogganaa oo doorashada lagu soo gabagabeynayo. sidoo kalena waxaan eegi doonaa xog la xiriirta heshiisyadii qarsoodida ahaa ee madaxweyne Farmaajo uu galay inta xukunka uu joogay. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeen aad soo booqatay, nagu soo biir, subscribe dhee, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. like dhee muuqaalka garuubyada WhatsAppka iyo Facebooka inaad ku sii share garayso ayaan kaa rajeynayaa. waa maalinimo jimco ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 1 bisha Abriil sanadka 2022. waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. ciidamo dheeraad ah ayaa la wareegay amniga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo xaaladda Muqdisho ay cabsi tahay, lagana cabsi qabo in weeraro culus oo xafiiska ra'iisul wasaaraha lala beegsan karo ay dhici karaan. maalmihii u dambeeyay ee xukunka madaxweyne Farmaajo iyadoo lagu jiro ayuu haddana dalka lugaha la sii galayaa xiisado hor leh iyo xaalado ammaan darri oo aad looga deyrinayo. inkastoo madaxweyne Farmaajo uu la yimid hufnaan hogaamineed iyo haykal dowladnimo caalamkuna qireen dib u soo laabashada haybadii Soomaaliya, ayuu mucaaradka ku wajahayaa dhaleeceen iyo weliba dhaliilo colaadeed oo sida la sheegay isaga uu ku doonayo inuu isaga reebo. gunta inta badan markaad eegto waxaa inta badan hadda laga shaki qabaa in madaxweyne Farmaajo uu kaalin ku leeyahay falalka amni darri ee ka jira gudaha dalka. waxaana Farmaajo uu bilaabay waddo kasta oo uu ku sii joogi karo xukunka, isla markaana uusan marnaba doonayn in haba yaraatee xukunka uu isaga tago. xogtu waxay tilmaamaysaa in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ciidamo dheeraad ah lagu wareejiyay amnigiisa, isla markaana aad loo adkeeyay. Roble oo ka hadlayay habeen ka hor madal tacsi ah oo loo dhigayay Allah u naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi ayuu sheegay in xitaa markii meeshaas uu imaanayay aan la ogoleen inuu soo baxo, laakiin uu soo baxay, isagoo qiray in xildhibaanad Aamina gacantii dishay Ikraan Tahliil ay ku baxday iyaduna. Roble ayaa sidoo kale muujiyay in lacaga fara badan lagu bixiyay ninkii isku qarxiyay xildhibaanad Aamina oo meel fog laga keenay. waxaase uu sheegay inuu hayo fariimo muujinaya hanjabaado toos ah oo ku socda isaga iyo Cali Guudlaabe. iyadoo taasi laga duulayo ayaa la xaqiijiyay in amniga ra'iisul wasaaraha si weyn loo adkeeyay, uuna ka feejigan yahay weeraro uga yimaada xilligan Villa Soomaaliya oo doonaysa in ay ka takhasusho ra'iisul wasaaraha iyo dadka kale ee ku ra'yiga ah oo uu ka mid yahay Cali Guudlaawe Xuseen. wasiir Beyle ayaa afka furtay isla markaana tilmaamay in cawaaqib xumo aad u xoogan laga dhaxlay dib u dhaca doorashada. wasiir Beyle oo ra'iis siiyay wargeyska The African Report ayaa sheegay in Soomaaliya ay gaari karto isku filnaansho, laakiin haddii ay hortaagan yihiin siyaasad aan degnayn iyo khataro amni oo joogto ah, waxba dalka ma gaari karo, ayuu yiri. Beyle wuxuu sheegay caqabadaha ka dhashay dib u dhaca doorashada inay yihiin in dhaqaalaha lagu taageeri jiray Soomaaliya uu hakad ku jiro. Soomaaliya waxay leedahay arrimaheeda iyo dhibaatooyinkeeda. dabcan waa waddan jilicsan, wax walbana way dhici karaan, laakiin waxaan qabaa inaan dhammaanteen isku raacsannahay in doorashada ay gabagaba tahay. xaqiiqda ah in doorashada baarlamaanka 96% ay dhammaatay waxay la micno tahay in wejigii koowaad ee doorashada madaxweynaha uu soo dhawaaday. hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa dhowaan sheegtay in taageerada maaliyadeed ee uu bangiga adduunka siiyo Soomaaliya iyo deyn cafinta ay ku joogsan karaan 3 bilood gudahood haddii ay timaado dib u dhac cusub oo laga dareemo doorashada. wasiir Beyle ayaa horay waxa uu uga muujin jiray arrin wanaagsan iyo rajo aad u weyn in deyn cafinta Soomaaliya lagu guuleysan karo. hase ahaatee dib u dhaca doorashada ayaa loo aaneynayaa in caalamka aysan ku qanacsanayn.
agaasimihii sirdoonka ee dalka Faransiiska ayaa laga qaaday xilka iyadoo sabab la yaab leh loo tiirinayo. Madaxa hay-adda sirdoonka Faransiiska General Eric Vadod ayaa shaqadiisa waayi doona kadib markii uu ku guuldareystay inuu sii saadaaliyo dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine sida ay sheegeen warar soo baxaya. 7 bilood kadib markii uu xilka qabtay, waxay wararku sheegayaan in lagu eedeeyay inuu bixiyay xog aan dhammaystirnayn iyo in uu aqoon u yeelan waayay arrimaha loo igmaday. Sirdoonka Mareykanka ayaa inta uusan dagaalka Ukraine bilaabanin sheegay in Ruushka uu damacsan yahay in uu weerar ku qaado waddanka dariska la, halka sirdoonka Faransiiska ay sheegeen in tallaabadaas aysan u badnayn inay dhacdo. Generaalkan ayaa wajahaya fadeexad, waxaana arrintaas ku dhaliilay madaxa militariga ee Faransiiska sida warbixinada lagu helayo, balse waxaa la aaminsan yahay in General Vadod oo horey u ahaa taliyaha ciidanka qaaska ee Faransiiska uu shaqadiisa ku waayay sababo kale oo dheeraad ah oo la qarinayo. Dhowr isbuuc kadib markii uu qabtay xilka madaxa sirdoonka militariga, shaqadiisa ayaa si weyn loo cambaareeyay kadib markii dowladda Australia ay ka baxday heshiis balaayiin dollar ku kacayay oo ay ku damacsaneed in Faransiiska ay uga iibsato maraakiibta biyaha hoostooda quusa. Australia ayaa heshiiskaas u weecisay dhanka UK iyo Mareykanka. Dowladda Faransiiska ayaana arrintaas aad uga carootay. Waxaase marka la eego mashaqada ka taagan Ukraine, inta badan sirdoonada caalamku ay ka keeneen warbixino kala duwan oo ay ku ogaadeen sida ay u heleen xog dheeraad ah oo ku saabsan in Ruushka la ogaaday inuu u diyaar garoobayay muddo aad u fog dagaal uu ku qaado dalkaasi. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dardar gelinaya doorashada xilli uu ballan qaaday in 14 February la qaban doono doorasho hufan oo soo dhacday iyo weliba dhaarinta xildhibaanada. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay guddoonka guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID iyo xoghayaasha guud ee Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, wuxuuna kala hadlay qorshaha shahaadaysiinta iyo dhaarinta xildhibaanada. Tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay mid uu ku dardargelinayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble xilligan guud ahaanba isku dayada ah in uu soo gabagabeeyo doorashada labada aqal, islamarkaana guddoon sida ugu dhaqsiyaha badan loo doorto lagana shaqeeyo sidii madaxweyne loo dooran lahaa. Ra'iisul Wasaaraha oo la aaminsan yahay in culays weyn oo siyaasadeed uu wajahayo ayaa dhinaca kale waxaa la fahamsan yahay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble marnaba uusan ka baqayn in doorashada sidii loogu talagalay uu u qabto si dhibaatada Soomaaliya ay wajahayso gebi ahaanba meesha looga saaro. Waxaa xog dheeraad ah laga helayaa inta heshiis ee uu galay madaxweyne Farmaajo intii uu xukunka joogay 5 sano aynu ka soo gudubnay. Tan iyo markii Farmaajo uu noqday madaxweynaha Soomaaliya February 2017 waxaa maalin walba soo ifbaxayay oo dunida kale ay soo bandhigayeen xogo qarsoodi ah oo ku saabsan heshiisyo uu la galay dalal shisheeye, kuwaasi oo laga qariyay hay-adaha dowladda, gaar ahaan kuwa korjoogteynta sida sharci dejinta, kuwa dabagalka sida hanti dhowrka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Heshiisyadan oo 8 gaaraya ayaa ah qaar ganacsi iyo dhaqaale laga sameyn karo, qaar military iyo ciidan ah, iyo kuwo kale oo aan la garanayn waxa uu ku bedeshay. Hubka Shiinaha. Markab hubsiday oo ka yimid dalka Shiinaha ayaa March 18 2022 ku soo xirtay dekedda Muqdisho. Dukumeentiyo ay heleen warbaahinta ayaa ku xusan shixnado hub noocyadiisa kala duwan ah oo markabka ku raran oo ka furtay dekedda Xamar. Liiska xogta waxaa ku jirtay hubka noocyadiisa kala duwan, gaadiid, qoryo, rasaas iyo saanad ay ku jiraan booyado iyo waxyaabo kale. Waxa ay khubaro amni oo la hadlay Goobjoog News ay ka digeen in hubkaas loo adeegsan karo qalqalgelinta arrimaha doorashada. Dhanka kale, General Townsend oo madax ka ah Africom oo wareysi siiyay VOA-da ayaa sheegay inuu jiro saldhig military oo uu Shiinaha ka samaysan rabo Soomaaliya, isagoo arrintaasi sheegay in aad iyo aad ay uga soo horjeedo dowladda Mareykanka. Wuxuuna intaasi sii raaciyay inuu jiro wadahadal muddo socday oo u dhexeeyay labada dal, arrinkan oo toddobaad ka hor shaac bixintiisa si dhow loola socday lagana war helay.
arrinta saddexaad ee Shiinaha qusaysa waa heshiisyo kalluumaysi. Hantidhowraha qaranka ayaa January 12keeda soo saaray digniin kama dambeysa oo ku socota wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, isagoo uga digay bixinta ruqsado. Arrintan ayaa daba socotay warbixin hore oo isla hantidhowraha uu ku sheegay inay jiraan heshiisyo kalluumaysi oo sharci darro ah. Heshiisyadaas waxaa la galay intii uu joogay maamulka Farmaajo, waxaana qayb ka ah dad ka tirsan maamulkiisa. Heshiiska shidaalka iyo Coastline, inkastoo uu Farmaajo soo saaray dikreeto madaxweyne oo uu ku joojiyay heshiisyada xilliga doorashada la daabacay 7 bishii 8 2021, haddana waxaa muuqata inuu isagii ku lug lahaa heshiiskii shidaal ee la galay dhowaan. Mas-uul ka tirsan shirkadda Coastline oo la hadlay Goobjoog News ayaa codsaday in magaciisa aan warbaahinta loo adeegsan, wuxuuna sheegay in heshiiska lagu saxiixay ogolaanshaha Farmaajo ayna caddeyn haystaan lana wadaagi doonaan cidda ay qusayso. Coastline Exploration waxay sheegayaan in lama filaan ay ku noqotay jahwareer ay u arkaan hadallada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Farmaajo oo labaduba ku qanacsanay saxiixa heshiiskan. Sida Goobjoog xogta ay ku helayso, shirkado badan oo qayb ka ahaa maalgelinta ololaha Farmaajo 2017 waxaa ku jiray kuwa shidaalka ah, isaga oo lacago ka helay mas'uuliyiin ka tirsanaa shirkadahaasi. 4 dekad oo uu siiyay Ethiopia January 2016 wixii ka dambeeyay, isla markaana waxaa la tilmaamay in ilaa 2018 xiriirka uu la yeelanayay dhinaca Ethiopia uu sii xoogeysanayay. Waxaa booqasho maalinle ah dalka ku yimid Abiy Ahmed, Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia, waxayna madaxda Soomaaliya oo xilligaasi uu hogaaminayay Farmaajo ay isla soo saareen warmurtiyeed ay ku sheegayaan in Ethiopia ay Soomaaliya ka maalgashan doonto 4 dekad. Taasina waxay muran weyn ka dhex dhalisay siyaasiyiinta, shaki ballaaranna ay ku abuurtay Soomaalida intooda badan. Ethiopia iyo heshiis maxaabiis isweydaarsi ah. Dhiibistii uu Farmaajo dhiibay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax Agoosto 27keedii 2017 iyo fadhiyadii ka dambeeyay ee Farmaajo iyo Abiy waxa ay soo saareen heshiisyo qarsoodi ah oo labada nin ay galeen, kuwaasi oo la xiriira maxaabiista, sirdoonka iyo arrimo kale oo la isdhaafsado, taasi oo sidoo kale la qariyay shacabka Soomaaliyeedna aysan ogeyn. Heshiisyada military ee Eritrea, Farmaajo waxa uu sidoo kale heshiis qarsoodi ah oo amni la galay dhigiisa Afwerki, iyada oo taasina ay keentay in ciidamo badan loo qaado tababar xoog ah oo dalkaasi loogu soo sameynayo, kuwaasi oo qaarkood ku dhintay dagaallo ka dhacay gudaha gobolka Tigray ee Ethiopia. Qatar iyo heshiisyo maldahan. Dalka Qatar ayaa sidoo kale waxa uu la galay heshiisyo qarsoodi ah iyagoo maalgeliyay dhismaha ay degan tahay hay'adda NISA. Waxaa kale oo madaxa ay uga dhigeen Fahad Yaasiin oo gacan saar la leh khaliijka wadamada ugu waaweyn sida Qatar. Waxaana loo arkaa in madaxweyne Farmaajo sidoo kale uu heshiisyadaas ka qariyay inta badan dowladda Qatar uu la galay shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dowladda. Lamana oga heshiisyadaas waxa dhaafsiisan iyo madaxweyne Farmaajo waxa uu ku bedeshay. Guud ahaan waa naga inta tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka. Haga Media ayaad ka daawanayseen. Muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanidin. xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa si weyn hadda isku beddelaysa. Doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ee ka socday dowlad goboleedyada dalka inta badan ayaa la soo dhammaystiray. Guddiga doorashooyinka FID ee heer federaalna waxa ay ku jahawareereen hannaanka shaacinta kuraasta, xilli guddoomiyaha guddiga FID uu xalay shaaciyey xubnaha dowlad goboleedyada laga soo doortay lagana reebay 4 xubnood oo mid ka mid ah uu yahay kursiga uu ku guuleystay agaasimihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Hannaanka maaraynta kuraasta lagu reebay si weyn ayaa dhinacyo kala duwan oo siyaasadeed ay uga faalloodeen. Dabcan arrinta weyn ee taagan waa in kursiga Fahad Yaasiin uu yahay mid siyaasadeed oo dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu ay aragti iyo doodo kala duwan ka qabaan. Sidaas oo kalena loolanka waxaa qayb ka ah dowladaha Carabta ee isku haya arrimaha Soomaaliya. Imaaraadka Carabtu waxa ay u aragtaa in Fahad Yaasiin uu halis ku yahay malafkeeda siyaasadeed ee Soomaaliya,
ra-iisul wasaaraha soomaaliya injineer maxamed xuseen rooblana waa xaliifka ama saaxiibka ugu dhow ee imaaraadka carabta marka laga hadlayo hannaanka geedi socodka doorashooyinka ee shukaantooda sare xubnaha golaha wadatashigu ay hagayaan. madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen oo deegaan doorashadiisa baydhabo 3 kursi laga hor istaagay in la siiyo shahaadada xildhibaannimada ayaa si weyn ka mida dhinacyada ugu foogan arrimaha kuraasta la reebay. dowlad goboleedyada iyo golaha wadatashigu hannaanka maaraynta kuraasta reebidooda aragtiyo kala duwan ayay ka qabaan. ha yeeshee labada dowlad goboleed ee puntland iyo jubbaland uma arkaan wax dhiba in doorashada laga reebo fahad yaasiin, waase u soore iyo baraare wanaagsan oo ay naawilayaan. dadka siyaasadda soomaaliya rogroga ayaa leh kasokow in kursiga fahad yaasiin uu yahay ubuucda kuraasta la reebay, khilaaf siyaasadeedna uu dhexda ka taagan yahay, haddana waxa ay ugu dambaynta noqon doontaa in dhinacyada siyaasadda ee soomaalidu aysan ku sii dhiiran karin sii haysashada golaha wadatashiga doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya awooddooda ilaa guddiga fiid waxa ay ku eg tahay marka ay kulmaan xubnaha golaha shacabka qaataan shahaadada halkaas ama la dhaariyo ayaana ah goobta ugu dambaysa ee waajibaad shaqo oo xubnahaasi ay leeyihiin ay ku eg tahay. hannaanka intaasi waxa ka dambeeya waxa ay noqon doontaa mid baarlamaanku uu maareeyo iyadoo oo dhammaan dhinacyada siyaasadda ee soomaalidu ay si xooggan ugu foogan yihiin ka qayb noqoshada loolankaa siyaasadeed. gorfeeyaasha ayaa leh ugu dambayn kursiga fahad iyo xubnaha kaleba waa la sii dayn doonaa, waxaase ka horrayn doonta loolan adag oo siyaasadeed iyo dhinacyada oo isrixriixoodu uu gaaro figta ugu sarraysa. waxaana maanka lagu hayaa in 10 bishan ka hor ay tahay in dhammaan dhinacyada siyaasadda ee soomaalidu ay ka gudbaan ishaysiga ku saabsan kuraasta loona gudbo u dhaqaaqidda doorashada iyo dhinac kasta hankeeda siyaasadeed. ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sida muuqata khilaaf shakhsi ah uu kala dhexeeya fahad yaasiin ayaa ku wajahnaan doona xaaladda siyaasadeed sida uu u maareeyo. wakiilada caalamiga ayaa iyana sheedda ka eegaya hannaanka maaraynta dhammaan dhacdooyinka, waxaana beegsiga kuraas gaar ah ay ka dhignaan doontaa inaysan si dhow u soo dhowayn maadaama doorashadii ugu xumayd ugu daahfurnaanta yarayd isla markaana ay ka dhaceen ficillo waaweyn oo ka dhana hannaanka geedi socodka doorashooyinka la soo maareeyey ayna ku soo baxeen